Haddii aad sawiro ku haysato dukumentigaaga, waxaad doonaysaa inay u muuqdaan sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Mararka qaarkood taasi waxay la macno tahay samaynta waxoogaa hagaajin ah, sida beddelka midabka, ku darista saameyn, ama kaliya codsanaya xuduud. Si aad u bilowdo, dooro sawirka aad rabto in aad wax ka beddesho. Tani waxay furi doontaa tab format ee dhinaca midig. Halkan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u saxdo sawirka. Marka hore, waxaan ku tusi doonaa sida loo gooyo cabbirka duwan. Kaliya dhagsii amarka crop. Waxaadna arki doontaa silsilado gacan-goynta ah ku wareegsan cidhifka sawirka. Waxaad u baahan doontaa inaad si toos ah u dul saarto jirkaaga gacmahan, ama waxaa laga yaabaa inaad si qalad ah u qabsato mid ka mid ah gacan qabashada cabbirka. Hadda guji oo jiid gacanta iyo qaybta sawirka la jarayo ayaa lagu muujin doonaa cawl. Kaliya sii wad samaynta hagaajinta haddii loo baahdo, kadibna dooro amarka ama kaliya taabo qaabka gelida markaad dhammaysid. Waxaa laga yaabaa inaad dareentay inay jirto fallaadho hoos u dhac ah oo ka hooseeya amarka dalagga. Haddii aan ku dul jiro dalagga una qaabaysano, waxaan beddeli karnaa qaabka sawirka, markaa ma ahan oo keliya 4 gees ama leydi. Waxaan dooran doonaa qaabka ilmada, kaas oo sida aad arki karto u dhigma inta kale ee garaafyada dukumentigayga. Xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad beddesho ama saxdo midabka sawirkaaga, ama aad ku darto nooc ka mid ah saameynta gaarka ah. Waxaad ka heli kartaa xulashooyinkan kooxda hagaajinta. Tusaale ahaan, haddii aad u tagto hagaajinta, waad jilcin kartaa ama afaysan kartaa sawirka. Kaliya fiiri sawirada thumbnails si aad u aragto sida uu u ekaan doono. Waxa kale oo aad hagaajin kartaa dhalaalka iyo isbarbardhigga. Waxaan filayaa in midani ay u muuqato mid wanaagsan. Midabka aan eegno amarka midabka xiga. Halkan waxa aad ka beddeli kartaa saturation, sidoo kale midabka, kaas oo xukuma sida diiran ama qabow ee sawirku u muuqdo. Waxaad xitaa beddeli kartaa midabka sawirka oo dhan adoo isticmaalaya midabada mawduuca ee hadda lagu dabaqay dukumentigaaga. Kaliya waxaan beddelayaa codka midabka. Dabadeed fiiri amarka ugu dambeeya ee kooxda saameynta farshaxanka. Hadda waxay u badan tahay inaadan rabin inaad saameyn farshaxan ku isticmaasho sawir kasta. Laakiin xaaladaha qaarkood waxay runtii kaa caawin karaan inaad xoojiso dukumentigaaga. Tusaale ahaan, waan jeclahay saameyntan sababtoo ah waxay ka dhigaysaa sawirku u ekaado rinjiyeyn ama sawir, taasina waxay la mid tahay muuqaalka geesinimada leh ee aan u socdo si quman. Qaababka sawirka. Haddii aad raadinayso habab badan oo aad ku wanaajiso sawiradaada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso kooxda qaabka sawirka. Halkan waxa aad ku dari kartaa fareeshka, hooska hoos u dhaca, iyo saameynta sawirka kale oo dhan hal gujis ah. Haddii aadan jeclayn mid ka mid ah horudhacyada, waxaad isticmaali kartaa amarada dhanka midig. Tusaalahan, waxaan ku dari doonaa xuduudkayga, kadibna dib u fur amarka si aad miisaanku u yara dhumucdo. Cadaadis sawirada ka hor intaadan dirin dukumentigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad cadaadiso sawir kasta oo aad ku dartay. Tani waxay ka dhigi doontaa cabbirka faylka yar, markaa dukumentigu wuxuu noqon doonaa mid sahlan in la email gareeyo ama lagu dhajiyo shabakada. Marka hore, hubi in sawirkaaga la doortay, kadibna dhagsii amarka sawirada compress. Ogeysii in ay jirto ikhtiyaar lagu tirtirayo meelaha sawirada la gooyey. Tani waxay tirtiri doontaa meel kasta oo la gooyey si joogto ah, halkii ay qarin lahaayeen si aanay wax ugu biirin cabbirka faylka. Waxaad sidoo kale beddeli kartaa xalinta sawirka. Dejinta emailka ayaa bixisa xalka ugu hooseeya, sidaa darteed waxa ay yeelan doontaa cabbirka faylka ugu yar ee suurtogalka ah. Hadda muuqaalka sawirka ayaa xoogaa isbeddelay. Taasi waa sababta oo ah cadaadisku wuxuu hoos u dhigayaa tayada sawirka. Badanaa taasi maaha waxa aad rabto. Tusaale ahaan, haddii aad qorsheynayso inaad daabacdo dukumentiga halkii aad online ka diri lahayd.
Kaliya waa inaad go'aansatid haddii tayada sare ama cabbirka faylka hoose uu adiga kuugu muhiimsan yahay iyadoo ku xiran xaaladda. Hadda waxaad taqaanaa sida loo qaabeeyo sawirrada Word. Ha ka baqin inaad tijaabiso fursadaha aan maanta ka hadalnay. Qalab badan oo aad gacanta ku hayso waxaad ku samayn kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee wax abuurka sawirradaada.